السلام الله عليكم مر الباجوتاني سوبرنا مغلسان دكان نقد وانا سما غردون ميديا فضلنا ذاك عصبتها حسرت سبسكرايب قصدي عيدنا ساعتي قصدي شيخ دمر كي حنونك جعلك وينوم رئيسي قيبت دلوات أيامات وحندون الإنان أنا قلنا نصوق الفيديو داما فيديو وقت قادنا marka waxaan ka dhigaynaa inaan u soo dubno maadaama aan aragnay in qisada aad u dheer tahay asxaabtan ay aad ula socdaan marka qisadii waxay inoo mareysay Suhayb oo gabar isku dhaftay Subayr aan dhahay Suhayb maahan gabartii magaceedu waxa la yiraahdaa jiray Salmo sidaan idin sheegnaba gabadha magaceedu waxa la yiraahdaa Salmo waxayna wax ka barataa xarun lagu barto maamulka iyo maareynta Salmo waa gabadh dhinaca quruxda aad looga majartay oo midabkeedu yahay casaan dahabi ah Salmo ninka ama qofka quruxdeeda waxa xasuusanaya gabartii oo ninka abwaanka ahi ku sifeeyay isla magac baxday in Diraale way miraheeda kamid ahaayeen dumar ugu firroone dayaxshan iyo tobanaad dahab lagu masaalay da'dii 17 gobologu daray inta Diraale Salmo waxay ahayd gabar midabkeeda casaanka ah sida tiriiga wiilwiilaya dhinaca ooga hadii aad kor u milcado waxay ahayd gabar dheer oo aad qotonka moodo la hareeri ah oo qotomada u baxday waxay ahayd gabar ismaha jirkeeda kala baxsan yahay oo ay xubin kasta oo jirkeeda kamid ah sideeda ku cajibinayso haddii aan gudubno Salmo iyo quruxdeeda Salmo aabaheeda waxa la oran jiray Abdudoon hooyadeedana waxa la oran jiray Ruun isla markaana Abdudoon wax ubad ah wuxuu leeyahay Salmo oo kaliya hooyo Ruun marka ay Salmo dhashay waxay ahayd 17 jir hase yeeshee hooyo Ruun waxaa jeer dambe heshay toosan kadib markii uu dhinaca bidix kaga dhuftay xanuunka faaliga loo yaqaan waxayna noqotay bukaan jiif guriga laga daweeyo hooyo Ruun saacad goobta ama dhakhtar ku gaaynayo mooye inta badan waxay jirtaa aqalka oo waa dhul yar sidoo kale Salmo aabaheeda Xaaji Abdudoon waxa uu aad u culeysiiyay xanuunka islaantiis oo ahayd maruu u jecel yahay sida awgeed Xaaji Abdudoon waxa mashquuliyay la tacaalida xaaladda caafimaadka ee uradiisa Ruun iyo korinta gabadhiisa orodka ah Salmo taas oo keentay in Xaaji Abdudoon marna ka shaqeeyo daaweynta iyo duljoogga marwadiisa marna ka shaqeeyo nolosha qoyskiisa Salmo waxay ahayd gabar aan mar qoraal lagu qaban ama lagu arag meel joogjoog iyo dibad wareeg waayo marka hore waxay ahayd gabar akhlaaq wanaagsan iyo dhowr sanaan shakhsi ah edeb ku maneystay alle marka labaadna waxaa isku barkaday hawsheeda waxbarasho iyo dhibaatada gurigooda dhex taala Salmo ma ahayn gabadh dhalanteed ku nool sida gabdhaha badan caado u ah waxay ahayd gabar si fiican u dheersan dhibta iyo rafaadka qoyska haysta sababteeda marka laga yimaado hawsha guriga mar walba badiyaal ah Salmo waxay inta badan mashquul ku noqotay xanaaneynta iyo rogrogida hooyadeeda sidoo kale Salmo waxay ahayd gabar mar walba u heelan ixtiraamka iyo raaligelinta aabaheeda Salmo ma ahayn qof asxaab badan inta badan waxay ahayd qof gooni socod ah balse taa macnaheedu ma ahan Salmo inay ahayd qof dabeecad xun iyo qof qalafsan shakhsi ah oo looga cararo waxay ahayd shakhsiyad Ilaahay ku manaystay dabeecad wanaagsan oo aadanimo iyo dareen naxariis dabeecadda ku joogto hase yeeshee marka hore Salmo duruufta ayaa ka dhigtay gooni socod marka labaadna xishood iyo doorsanaan ay kaga durkayso macaamilka qaarka iyo waxyaabaha ay dhalinyarada badan iyo xadaaradda u yaqaanaan ayaa gooni socod ka dhigay laakiin taasi kama xaanatameynaysa asxaabteeda
ay u aragto inay qaalin darin habdhaqankeeda nololeed iyo sumcadeeda shakhsiga ah. Intaas oo hooyo Run toosi dhul dhigtay hadalkuna diriq kaga soo baxayay, haddana waxaa dareenka kaga soo neefiyay kalgacaylkii waalidnimo iyo danayntii hooyanimo. sidaa darteed mar kasta oo hadal ka soo baxo waxay ku dayeysay inay gabadh dhowrsan oo ilaalisa ay ahaato. intaas ayaan ku intaa barnaamijkeena fanda hoostan subscribe saar.